بسم الله الرحمن الرحيم maanta waa kaltankii afraad oo guddiga qaranka shaqaalaha rayidka dawladda uu ka qayb qaato waxaan hadda dhex taaganahay madxafka qaranka oo hawl adag oo aad u qurux badan ka socoto oo ay maanta aan u jeedno in rinjigii iyo muxuu ahaa qaybihii ugu dambeeyay uu marayo waxaana kormeer ku soo sameynay tiyaatarka oo asagana gabagabo maraya iyo sidoo kale maktabadda qaranka ayadana sidoo kale howl aad u baaxad weyn ayadana ay ka socoto runtii shaqaalaha rayidka ee dawladdu shaqo weyn oo la taaban karo ayay qabteen waana waxyaabaha dawladnimada ay aas-aaska u ah in ay ummad walba iyada ay isku tashato shaqaalaha ay xoogga saaraan sidii ay muxuu ahaa u dhisan lahaayeen waddankooda taas ayaana daliil u ah in muxuu ahaa hoggaanka dawladdeena ay noogu horseetay dib u dhiska dalka iyo hay-adihii lagu shaqayn lahaa laftirkoodii inaan dib u hagaajin lagu sameeyo marka kormeerkii aan ku sameynay saddexdaas dhismo runtii shaqooyin aad u weyn baa ka socda waana gebagabo waxaan rajaynaynaa kaltoonada soo socda oo shanaad iyo lixaad waxaan rajaynaynaa inay dhammaan doonaan dhammaantood dhismooyinkan keliya markaa wixii ka dambeynaya diyaar u ahaan doonaan in dawladdu ay ku shaqayso hay-adihii loogu talagalay in ay ku qabtaan runtii waxaan halkan aad iyo aad rabaa inaan ugu mahadceliyo tiimka shaqaan ugu shaqeeyaan ugu horeeyo agaasime Ismaaciil iyo Maryan